mudanayaal iyo marweyn sanadku waa 2023 baahida loo qabo qofka inuu yaqaan luqadda Ingiriiska waa mid aad u sii kordhaysa bal fiiri dhanka cilmiga waxa la sheegay in cilmiga adduunka kala bar uu ku qoran yahay luqadda Ingiriiska dhanka shaqada waa xirfadda labaad ee looga baahi badan yahay qof kasta oo doonaya inuu shaqeeyo haddii sahayn bi xirfadda koowaad fiiri dhanka ganacsiga adduunka wuxuu noqonayaa tuulo dadka joogan ay ku wada hadlayaan hal luqad haddaad rabto inaad xiriir la samaysid dad kale ama aad la ganacsato dad kale waxaa muhiim ah inaad taqaanid luqadda Ingiriiska jalayaal muuqaalkani kuma saabsana inaan ka hadlo faa'iidada ay leedahay qofku inuu barto luqadda Ingiriiska muuqaalkani wuxuu la hadlayaa qof kasta oo og faa'iidada ay leedahay in la barto luqadda Ingiriiska isla markaasna doonaya inuu barto luqadda Ingiriiska magacaygu waa Shiine soo dhawaada ULearns waa macad Soomaaliyeed oo si online live ah wax looga barto mid ka mid ah courseska ugu caansan ee aan bixino waa luqadda Ingiriiska course-kan waa course kooban ama intensive course wuxuu isugu jiraa laba nooc nooca koowaad oo ah xiisado live Zoom ku baxaya isbuuciina qofka ardayga uu dhiganaya 3 xiisadood oo live oo Zoom iyo 10 muuqaalo ah oo ka daawan karo qofka website-keena xilli walba iyo goor kasta dhammaan macallimiinta dhigaya course-kan waa macallimiin native ah oo luqadda u dhalatay qof kasta oo soo enroll gareeya koorsadadan waxa uu helayaa shahaado certificate ah ama certificate of completion halkii level waxa uu soconayaa 3 bilood qofku markuu dhameeyana waxa uu helayaa certificate-kiisa dhammaan xiisaduhu waxay ka kooban yihiin elementary intermediate ilaa advanced sidoo kale haddii aad rabtid inaad aragtid courseska kale ee ku jira website-keena fadlan booqo website-keena ulearns.com kadibna arag haddii aad doonaysid inaad iska diiwaangelisid course-kan fadlan nagala soo xiriir WhatsApp-keena adiga oo buuxinaya foomka ku jira qaybta linkiga mahadsanid soo dhawaada